Guurku waa bilaash. Ragga Tataaristaan waxay dumarkooda Jamhuuriyadda Tataaristaan ku aqal-geystaan si bilaash ah. Diin, luqad, dhaqaale noocee ah ayay leeyihiin dadkaasi Tataaristaan oo si aad ah u haysta baraha bulshada. Haddaba wax ka ogow dhaqamada Jamhuuriyadda Tataaristaan. Muuqaalkan ayaa kaga bagan doontaan. Sii sheer garee, lana sii wadaag saaxiibadaada kugu dhow. Maxay yihiin Tataaristaan? Tataaristaan oo sidoo kale loo yaqaano Tataariya waa jamhuuriyad ku taala qaybta bari bartamaha Yurub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Ruushka. Jamhuuriyadda Tataaristaan waxay ku taalaa bartamaha webiga Volga ee agagaarka halka ay ku kulmaan webiyada Volga iyo Kama. Waa maxay luqadooda? Luqadda Tataar waa luqadda waqooyi galbeed Kipchak ee qoyska luqadda Turkiga ee ku dhex jira kooxaha luqadda alifbeetika. Waxaa lagaga hadlaa Jamhuuriyadda Tataaristaan ee ku dhex taala bartamaha galbeed ee Ruushka iyo Romania, Bulgaria, Turkiga. Waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah dadka ku hadla dalalka deriska ah sida Ukraine, Uzbekistan, Shiinaha, Finland iyo kuwa kale. Wadarta dadka ku hadla adduunka oo dhan waxay noqon karaan ilaa 7 milyan. Waa maxay diimaha Tataarka? Diimaha soo jireenka ah ee Jamhuuriyadda Tataaristaan waa Islaam iyo Masiixiyadda Orthodox. Dadka ku nool Tataaristaan waxay ka badan yihiin inta badan Muslimiinta Sunniga ah. Tataarka boqolkiiba 54, inta badan Masiixiyiinta Orthodox ee Ruushka boqolkiiba 40 iyo dadyowga kale boqolkiiba 6. Islaamka Tataaristaan wuxuu jiray ka hor qarnigii 10aad, laakiin wuxuu bilaabay korriimo weyn isla qarnigaasi 10aad sanadkii 922. Dhaqaalaha Tataariska. Jamhuuriyadda Tataaristaan waxay qani ku tahay kheyraadka dabiiciga ah. 2.2 boqolkiiba dhul beereedka Ruushka waxaa isticmaala Jamhuuriyadda Tataaristaan. 4.5 boqolkiiba wax soo saarka beeraha dalka waxaa soo saara Jamhuuriyadda. Tataaristaan waa isku xirka gaadiidka weyn oo leh dhaqdhaqaaq dhaqaale sare. Waxay hoy u tahay tiro ka mid ah mashaariicda caalamka sida Tatneft oo ku qoran liiska 5 shirkadood ee saliidda Ruushka, kiimikada, saliidda iyo kuwa ka mid ah shirkadaha batroolka ugu waaweyn ee Yurub. Sidoo kale shirkadda ugu weyn Ruushka ee baabuurta xamuulka.